sidee loo bilaabaa ganacsi noqda shirkad weyn? waxaad inta badan aragtaa shirkado aad u waaweyn kuwaasoo ku fadhiya balaayiin dollar, qaarkoodna ka dhaqaale badan yihiin wadamo dhan GDP-gooda. ma ogtahay 85% shirkadaha ugu saameynta badan suuqa adduunku inay ku bilaabmeen dhaqaale ka yar inta ay dadka caadiga ahi ku bilaabaan ganacsiyadooda yaryar, sida furid dukaan yar iyo goob farsamo gacanba. haddaba videogan waxaan si kooban uga hadli doonaa 5 qodob oo Elon Musk, kaasoo ah ninka ugu taajirsan adduunku, uu ku dhaqmay isagoon wax badan haysan markuu bilaabayay ganacsigiisa. qodobka koowaad, samaynta dadaal aad u badan. markaad bilaabayso ganacsi cusub, waxaa muhiim ah inaad la timaado dadaal aad u xad dhaaf ah. muxuu yahay dadaalkan xad-dhaafka ahi? haddaba markay Elon iyo walaalkii bilaabayeen shirkadoodii u horreysay, halkii ay ka kiraysan lahaayeen apartment fiican, waxay kiraysteen xafiis yar kaasoo ay dhex seexanayeen fadhi yar oo dhex yaallay, iyagoo isla meeshaas u isticmaalaya kijo iyo guri ahaanba. waxaanay haysteen hal kombiyuutar oo qura si ay ugu shaqeeyaan website software ay ku kala hagi jireen wargeysyada iyo xogaha magaalooyinka. maalintii waxay ka shaqayn jireen adeegyada website-ka, habeenkoo dhanna waxay ka shaqayn jireen coding-ka iyo dib u habayntiisa. waxaanay mar walba shaqaynayeen 7 cisho usbuuca. 4 sano oo dadaal badan ah kadib, Elon iyo Kimball Musk waxay shirkadoodii u horreysay oo Zip2 la odhan jiray ku iibiyeen $305 milyan. marka waa inaad adiguna dadaal badan la timaado saacad walbood soo jeedo haddii aad rabto inaad bilowdo shirkad. tusaale ahaan, haddii ay dadka kala shaqaynayaan 50 saacadood, adiguna aad shaqayso 100 saacadood, waxaad sanadkii dhammaystiraysaa 2 jibaar horumarka ay shirkadaas kala qabatay. qodobka labaad, alaab ama adeeg wanaagsan. waa in wax walbood qabanaysi noqdaa mid aad u wanaagsan, hadday tahay alaab aad iibinayso iyo hadday tahay adeeg aad bixinaysoba. haddii uu yahay fikirkaaga ganacsi mid cusub oo dadku u baahan yihiin, ama aad jalaysa suuqaan hore loo gelin, way fiican tahay rajada aad ku qabsanayso suuqaasi, maadaama ay alaabta aad soo saarayso ama adeeg aad bixinaysiba yihiin kuwo ku cusub adduunka ama goobta aad ka bilaabayso. laakiin haddii aad galayso suuqyo hore u jira kuwaasoo la tartamaya shirkado aad u waaweyn, waxaa markan muhiim ah in alaabtaada ama adeegaagu ay aad uga wanaagsanaadaan kuwooda. ma aha inay shaqadaadu in yarun ka wanaagsanaato kuwooda, waayo markay macaamiisha dhinacooda noqoto, isweydii maxay tahay sababta ay u iibsanayaan alaabtaada iyagoo arkaya alaabihii shirkadaha kale oo markadoodu sumcad iyo kalsooniba leedahay. marka sida kaliyaad ku heli karto macaamiil cusub waa inuu jiro farqi wanaagsan, sidoo kalena weyn oo u dhexeeya alaabtaada iyo tooda. inta badan entrepreneursku waxay keenaan fikrad in yar uun ka wanaagsan kuwa kale, taasaana keentay in ganacsigoodii guul badan samayn waayo. marka maaha in shaqadaadu in yar uun ka fiicnaato, ee waa inay alaabahaaga iyo adeegyadaaduba aad uga fiicnaadaan kuwa shirkadaha kale. qodobka saddexaad, dhisidda shaqaale adag. markaad bilaabayso ama aad ku biirayso shirkad cusub, waa inaad soo dhistaa tiim aad u wanaagsan oo aad u ixtiraamaysa shaqadooda, ayna sidoo kale wanaagsan tahay shaqadoodu. waayo waxay shirkadi gebi ahaanba ku dhisantaa koox dad ah kuwaasoo u kulmay si ay u soo saaraan alaab ama u sameeyaan adeeg fiican. marka iyadoo ku xidhan inta ay xirfad ama hibo leeyihiin tiimkaasi, waxay jiho fiican cusub u jeedin karaan shirkadda, taasoo go'aaminaysa guusha shirkadaasi gaarayso. marka waa inaad samayso wax walbay kugu qaadanayso si aad u dhisto tiim aad u wanaagsan haddii aad rabto dhisida shirkad weyn. qodobka afaraad, tayada oo laga doorbido shaacinta. qaladaad shirkado badan oo jira ay sameeyaan baa wuxuu yahay inay diiradda saaraan lacago badanna ku bixiyaan waxyaabo aan alaabtoodii ka dhigayn kuwa aad u wanaagsan. tusaale ahaan, Tesla oo ah shirkadaha ugu horumarka iyo awoodda badan adduunku, wax lacag ah kumay bixin xayeysiinta. waxay lacagahoo dhan geliyeen qaybta cilmi baadhista iyo horumarinta, iyo sidoo kale dhisaynka iyo soo saaristooda, si ay baabuurtooda ugu sameeyaan sida ugu fiican ee loo samayn karo, waana sida ugu fiican ee loo horumarin karo shirkadda. marka isweydii, dadaalada ay shirkadahan kala gelinayaan waxyaabaha kale sida xayeysiintu ma u wanaagsan tahay alaabta ama adeegooda? haddii aanay anfacayn, jooji dadaalada noocaasa, saarna xoogga tayada alaabtaada ama adeegaaga. qodobka shanaad, u bareer khatarta imika. ta u dambaysay loo baahan yahay inaad samaysi waxa weeye inay imika tahay waqtiga aad u bareerayso khatartu, waayo intay da'daadu korayso waxaa sidoo kale koraya mas-uuliyadahaaga. sida haddii aadan imika family lahayn, ogow hadhow markaad yeelato inay ku sugayso mas-uuliyadoodu, waayo markanaad family yeelato khatartii uguma bareeri kartid sidii markii hore oo waxay saamaynaysaa qoyskaagii. tani waa tusaale uun, muhiimaduna waxa weeye xataa haddii aad family leedahay inay khatarta oo loo bareeri imika ku
habboon tahay waayo cabsi kastoo dib ku celinaysaa waxay kaa xumaynaysaa rajadii bilaabida ganacsi weyn imika weeye inaad khatarta u bareedhid ka hor intaanay taa tegin fursadda aad maanta arkaysi horuuna mar walbo tallaabo aad u weyn qaaday inay noqonayso mid aadan ka quumamayn marka shantan qodob waa u muhiim ganacsiga shirkad walba marka la bilaabayo iyo inta lagu jiro horumarintiisaba ogowna taladan marka aad bilaabaysa ganacsigaaga yar u diyaari siduu ku noqon lahaa markad caalami ah oo suuqyada adduunka ka mid noqon doonta mustaqbalka dhow iyo ka fogba shirkad walba jirtaay waxay ka bilaabantay dukaan yar kuna dambeysay inay isku bedesho hanti caalami ah oo maanta laga yaqaan adduunka oo dhan